السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج كيني سبورتيكا ما أنت واحد نديرة كسارينا ترتنك بابورتا فورمولا 1 ترتنك بابورتا فورمولا 1 هيركا كوباد وترتنك ودها كلية يا تايركا فران تاسو معنيدو تهاي تايركا فران إن تايركا لبدلي كرو ترتنك دحديسة sidoo kale tartanka formula wuxuu ka kooban yahay silsilad tartan ah kuwaas oo sanadka dabayaaqadiisa lagu jaangooyo darawalkii ugu wanaagsanaa iyo shirkadii lahayd baabuurkii ugu wanaagsanaa formula waa tartanka quriya ee uu gaadhay speedkiisu 350 kilomitir saacadiiba amba 200 mayl saacadiiba bal aynu jaleecno taariikhda formula 1 1910kii ilaa 1930kii waxa aad u badatay shacbiyada tartanka baabuurta ee qaaradda Yurub taasoo markii dambe loo fikiray in la ballaariyo laga dhigo tartan baabuureed caalami ah balse waxa ka soo dhex galay dagaalkii labaad ee adduunka waxay arintu sida ahaataba 1947kii waxa caadi loo bilaabay mashruuc ah in laga dhigo tartanka baabuurta caalami kaas oo daaha laga qaaday 1950kii bishii Abriil 10keedii 1950kii Abriil 10keedii waxay ahayd markii koobaad la qabto tartanka baabuurta heer caalami waxaana lagu qabtay waddanka Ingiriiska garoonka tartanka baabuurta ee Silverstone balimikii haatan aynu eegno shuruucda iyo qawaaniinta aasaaska u ah Formula 1 waa inuu lahaadaa gaadhigu hal kursi waa inuu dhulka ka sareeyaa 95 cm waa inuu dhererka gaadhigu ahaadaa 1.80 m sidoo kale miisaanka baabuurku waa inuu ahaadaa 600 oo kilogram taasuu ku jiro darawalka miisaankiisu sidoo kale waa inaanu baabuurku yeelan saqaf daboola darawalka shuruudaha waxa kale ku jira in uu darawalku gaadhiga kaga soo bixi karo 5 sekin gudahood haddii wax ku dhacaan Formula 1 sidoo kale lagama ogola gaadhi automatic ah gaadhigu sidoo u dhan yahay waa manual Formula 1 waxa kale ka mamnuuca mashiinada nooca loo yaqaan turbo tartanka baabuurta ee Formula 1 waxa la qabtaa 3 cisho Jimce Sabti iyo Axad maalinta Jimcuhu waa maalintii jawaabooyin xor ah taas oo ay ku bartaan kooxaha iyo darawaliintu garoonka cusub tartanka maalinta Sabtida waxa lagu xadidaa kaalmaha safka rasmiga ah ee tartanka Axadda haddaynu halkaan yar sharaxno had iyo jeer dadku waxay isweydiiyaan sababtay baabuurtu u kala horeysa maalinta Axadda ee tartanka weyn sababtu waxa weeye qofka tartankii Sabtida kaalinta koobaad galay maalinta Axadda safka wuxuu ka gelayaa halka ugu horeysa sidaas aanay iskugu xigayaan dhamaantood halka waxaynu ka fahmaynaa in maalinta Axadda uu dhacayo tartankii weyna tartankaas oo qofka ku guuleysta uu helayo koob iyo dhibco 20ka baabuur ee tartamaya 10ka ugu sareeya waxay helayaan dhibco u dhaxeeya 1 ilaa 25 tartanka baabuurta ee Formula 1 imika waxa lagu qabtaa 20 dawladood waxa ka soo qayb gala 10 shirkadood ah kuwa gawaadhida sameeya iyo 20 darawal shirkad kastaana waxay wadataa 2 darawal ciyaartoyda ugu caansan waxa kamid ah Michael Schumacher Lewis Hamilton iyo Sebastian Vettel